السلام عليكم أصحاب تفاضل قروح ميل كستو أدونك كجوجتين وحانكو سلام يا سلام قالي أصحاب تهرنا ولا جوجتين وأم هاد علينا كو عصب أو نوصو بيرنا إن شاء الله أيكنا وأم هاد علينا ناس عدا إن شاء الله ما أنت فاضمو محكا هالدونتا فاضمو قروح فشيال ما أنت وحكا هالدونتا ور سو جاري وما أنت وركاسو إن عاشو ay heshay xaqeedii oo waalidka dhalana ay ku farxeen oo ayadina maanta qalbigeedu u qaboobay saqiir aan qire aheeday ilaahay waxaan kaga baryayaa insha Allah janna firdawsa inuu geliyo labadii dhashana sabr iyo iimaan Allah ka siiyo maanta waxaan ku faraxsanahay in raggi caasho kufsaday xaq la mariyo oo la toogto laakiin mid baa laga reebay sabab anigu sababtaas aan fahmin waxa looga reebay horta mid uuba qirtay midna uuba diidana oo ma sheeginba inuu wax sameeyay in kale odaga weyn oo awoowaha camalna uu diidana wuxuu yiri anigu waxa ma sameyn laakiin anigu maanta waxaan ka xumahay in labana la toogto halna laga tago caasho xaqeedii maanta heshay gabar dambe lagu dhiiramaayo gabar dambe Puntland looga dhiiramaayo ama wadanka Soomaaliya oo dhan haddii kii gabar haweystaba godka saa loo geliyoon ku dhahay saa loo basaaso inta bulshada horteeda la keenaan ku dhahay qoraga lagu tiriyo wallaahi oo billaah gabar dambe inaa la fiiriyeen meeqa gabdhood aa wadankeena ku dulman meeqa gabdhood aa wadankeena ku dulman oo maanta ciil iyo iscinkaambis iyo mustaqbalkoodii iyo waxaan ku dhahay noloshoodii dhaafiyey had oo dhibaato ku jirta maanta laakiin caasha xaqeedii heshay ma sha Allah gabar Soomaaliyeed oo xaqeedii heshay waxaan ka arkay caasha Ilyas Allah u naxariisto ilaahay waxaan kaga baryaa inuu ilaahay janna firdawsa geeyo rabbi subhanahu wa ta'ala gacanta ka xaq dareedo dishana inuu Allah u naxariisan بعذابته كجعجعيه لأنه قف دله إلهي وأوجا آراء الدونكو ومالمكوبن حقي ذي صباحي يكو صغير تكف صدين وحس لهن عيبتين إذن وهدي الديسين إن أنت يرنتها كفستين واللي نديني وعيبه بسينو وإذن شيء سوي إذا أنقون سنة سيدل وقدر لكن رب سبحانه وتعالى حق مضى والمو مالين أبو صائف بحا وأنا صائف بحي إيكو رج وين أو وحنا كله جري جفور له صوت تاجن وأنا كفسن لا باي لكن أنا نينك كله هلا صوت تاجو نينك كلام سجايا إن الصوت تاجو أول جليو أول توكتو أول قصاصه محل الرابع حسبنا الله ونعم وكيل إله وطن كان إنه هذا لا حول ولا قوة إله دولة عدالة كابرن أو قبلها وضد حقوقها ضمرك وضد حقوق ضمر وضد الملي هنا بسم الله الرحمن الرحيم wadamada gaalada dumarka sida looga ixtiraamo ayaaba sida waxaan ku Soomaaliya dhibaatada ka taagan hablaha un baaba saa loo ugaarsanaya oo hadda habli ugaarsataan yaa wadanka u maqan illa habluhu waa beerta wax soo saarta beer dumarku waa beer wax soo saarta ma sha Allah maanta wadankeenu 3 sano burbursan yahay maanta waxa dhabarka u xirta waa hooyo waxaan ku ilmaheedii korsato waxaan ku ilmaheedii la silacdo waxaan ku ilmaheedii daruuf iyo dan walba ugu dul qaadatay daruuf iyo dan walba nolol walba u soo martay hooyo in la taabto ama ha yaraato ama ha weynaato ama gabar yariisa ha ahaato waa hooyo maalin un bay hooyo noqonaysaa hadday yartahay maalin un hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala siiyo maalin un waa wax soo saar dumarka ha laga daayo kufsiga ha laga daayo caqaladaynta halaga daayo silaca halaga daayo nolol xumada maantay wadanka Puntland Garowe waan ku gaalkacay ahayd mid Garowe waaba kale ilaa ciilkooda bay haayeen adigu Soomaaliya oo dhan ama xamar ha ahaato ama Garowe ha ahaato ama gaalkacay ha ahaato ama Soomaali meesha degtaba ha ahaato ninkii gabar hunguriyeeya oo gabar fiiriya waa in tiirka la mariyaa dawladda maxay dawladda ka yihiin maxaa dawladda ka nahay tiirka saa waa in loo mariyaa nin dambe gabar haweysta ma geeyiga Soomaaliya lagu ma arki lahayn bageeyiga Soomaaliya nin dambe gabar haweysta maanta diiga boqol tagan ninka sababta loo reebay la yaabana ninka sababta loo reebay sababta waa in tiirka la soo taaga asna kan saddexaad ilaa laba la toogtay taasan sugaynaa insha Allah عشان waxaan ugu baray Ilaahay inuu
الله الرحمن الرحيم ما أنت تساك الله وسع وهي فبراير 11 وحال قصاصي لبنين ودنبيلياشيها وعبد الفتاح عبد الرحمن ورسمة عبد الشكور محمد دقي بالقصاصي ما أنت هذه بان أنا قصاصتي وأنا كفر حسن آخرهم ورترا وان كوير تير كان اللي وانا اللي دلي وبجوج وانا حتى أمريكا إنتين لونتا يقعنتا وكتابت قصاصتا أنا قاف شني أولادو waxay tarfishada leeyahay dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba inta muuqaalka la gareyso waxaan ilaahay aan kaga baryaynaa inuu ilaahay xifdiyo ilaahayna umuraha ilayhiin uu saalo awlaadana ilaahay ha u barakeeyo qof walba muuqaalka la gareeyo inta awlaad doonka aan ilaahay awlaad baari ah hasiyo qof walba muuqaalka la gareeyana ilaahay waxaan kaga baryaynaa umuruhu leeyahay ilaahay inuu u saalo inta guurdoonka aan ilaahay mustaqbal wanaagsan iyo guur wanaagsan ilaahay hasiyo xaasidka waxaan leenahay alxaasid la yaflax wa min sharri حاسد إذا حسد هوك قصارى يكون بين بإذن الله الكريم حاجة لي حاسدك فإذا ما لها إليك تلعق ميه موقالك كوكا بليكتا هذا نقول سبتا فرقم بلاك سي يكوسو قاران وربحنا ذا أنسو قد بنا هذا صاحبنا لا تحينا واتكم مع سنتاي وحنيجي دورنا محكمة دا بنتلان أو مانتا دلتو غشاء كفوليسي رجي كفصدي عاشا إلياس أو هيد قبر دائرة أو لا كفصدي دودين لقود دلي مقالة قال كعيو إيه حرونتا قبل كمدو بنتلان أيا هرسيدو نقطي عدالة كدب توغشدي lagu fuliyay shakhsiyaadkii kubsaday caasho oo ahayd gabar 16 sano jir ah taas oo lagu kubsaday magaalada gaalkacyo kadibna la toogtay si qarsoodi ahna loo aasay waxaana maxkamadda Puntland gaar ahaan maxkamadda sare ee maamulka Puntland magaalada Boosaaso saaka ay ku toogatay Cabdiraxmaan Warsame iyo sidoo kale Cabdishakuur Maxamed oo kamid ahaa 3 eedeysano oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kufsigii loo geystay caasho oo ahayd gabar si weyn ee kaga damqadeen ummadda Soomaaliyeed isla markaana si xun in loo kufsaday dabadeedna la dilay doogashadan oo ka dhacday magaalada Boosaaso waxay horseedaysaa cadaaladda Puntland ayadoo dad badan oo Soomaaliyeed il gaar ah ay ku hayeen kiiska caasho yarey oo si weyn u soo jiitay bulshada Soomaaliyeed iyo waliba hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka kuwaasi oo dalbanayay in cadaalad ay hesho caasho waxaana taasi hadda ay sababtay in Puntland ay horseed u noqoto cadaaladda waxaana saakay magaalada Boosaaso lagu toogtay oo toogasho lagu fuliyay Cabdishakuur Maxamed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Warsame oo 3 eedeysano laba kamid ayaa saakay maxkamadda Puntland ay toogatay ayadoona mid kale dib loo dhigay waliisa meesan faahfaahinin garsoorka Puntland sababta keentay in eedeysanihi saddexaad dib loo dhigo toogashadiisa waxaase la sugayaa waxay ka yiraahdaan garsoorka Puntland dib u dhigista qofkii saddexaad ee lagu tuhmayay ama lagu eedeynayay in ay inuu ka dambeeyay toogashadii waa dilkii iyo sidoo kale kufsigii loo geystay caasho waxaana caasho hadda ay heshay cadaalad ayadoona dad badan arintan si weyn ay ugu farxeen talaabada maamulka Puntland ay qaadeen taasoo ku aadan in caasho maanta ay hesho xukun cadaalad ah aabaha dhalay caasho ayaa muddo dalbanayay in loo toogto nimanka ka dambeeyay kufsiga gabadhiisa aaba Ilyas ayaa dhowr mar lagu arkay meediyaha ama warbaahinta asoo aad u ooynaya isla markaana aad u murugaysan kana dalbanaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni in cadaalad gabadhiisa ay hesho laakiin saakay waxa guul ah in caasho Ilyas ay heshay cadaalad ayadoona taasi ay meesha ka saarayso tuhunkii ku aadanaa in Puntland beelaha qaar aan loo tooganin qaladaadka ay geysteen laakiin Puntland waxa hadda lagu amaanayaa cadaaladda horseedka ay u noqdeen oo ku aadan in la toogto caasho Ilyas lamakii kufsaday waxa ay dad badan ay aaminsan yihiin middan inay yareen doonto kufsiga loo geysto gabdhaha da'yarta ay waliba haweenka oo Puntland mudooyinkii dambe ka dhacayay waana horseed u tahay cadaaladda waana bilowga cadaaladda iyo horumarka Puntland waxaana dadka Soomaaliyeed saagay dhamaantood ay ku amaanayaan Puntland inay horseed u noqotay cadaaladda mar haddii caasho Ilyas oo dhibana ahayd isla markaana la kufsaday dabadeedna la toogtay oo qoyskooda cadaalad ay u dhibanaayeen saaka ay heleen cadaalad waarta taas oo dad badan ka farxisay dhamaantiin waxa laga yaabaa inaad ku wada xukunka saaka ee heshay caasho Ilyas oo muddo sugaysay ama qoyskeeda muddo ay sugayeen xukun cadaalad ah waana bilowga cadaaladda Puntland waana farxadda ummadda Soomaaliyeed mar saakay haddii la toogtay laba kamid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay inay kufsadeen caasho Ilyas waa Cabdilfataax Cabdiraxmaan
sidoo waa cabdilfataax cabdiraxmaan warsame iyo sidoo kale cabdishakuur maxamed waxaana hadda la rajaynayaa in puntland faahfaahin ay ka bixiso waxa lagula dhaqmi doono qof walba qufsada gabar ama haweeney waana cadaaladda horumarka cadaaladda ee puntland ka jira talaabada saaka puntland ay qaaday maxkamadda darajada koowaad iyo weliba maxkamadda sare ee puntland ayaa labadaba waxay xukun dil ay ku xukumeen saddex eedeysano oo lagu eedeeyay inay kufsadeen 16 sano jir Caashe Ilyas oo ahayd gabar da'yar ah dabadeedna inay kufsadeen ay ku dileen magaalada Gaalkacyo waxaana la rajaynayaa in puntland ay ka taabagasho ama ay noqoto meel lagala dagaalo kufsiga madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa ballan qaaday cid walba kufsata haweeney inay mari doonto xukunka shareecada islaamka iyo weliba xeerka puntland u yaal madaxweyne Danni oo ka hadlayay magaalada Boosaaso iyo Garowe labadaba wuxuu dhowr mar ku celceliyay in aan la aqbali karin haweenka lagu kufsado puntland laguna raaxaysto gudaha puntland waxaana saakay taas ay muujinaysaa in hadalkii madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Danni uu daaban kale isla markaana puntland ay horseed u noqotay cadaaladda Caashe Ilyas waxay ahayd 16 sano jir isla markaana waxay ahayd arday wax ka barata gudaha puntland waxayna ahayd gabar qoyskeeda si weyn ay kaga ilmeeyeen dhibaatada loo geystay waxaana la isku daray kufsi iyo dil ayadoo ragga kufsaday ay ahaayeen rag qaangaar ah qaarkoodna da'da ay ka muuqatay waxaana dad badan ay la yaabeen waxa ku qasbay raggan in gabadhan ay kufsadaan dabadeedna ay dilaan saddexda nin ee lagu eedeeyay kufsiga Caashe Ilyas maxkamadana ay ku heshay ayaa la sheegay laba kamid ah in dhaqan celin loo keenay Soomaaliya oo laga soo tarxiilay Mareykanka kadib markii sida la sheegay ay kamid ahaayeen gaangiska laakiin dhaqamadii Mareykanka laga soo tarxiilay mid ka daran ayay waxay ka geysteen gudaha puntland kadib markii gabar da'yar ay kufsadeen dabadeedna ay aaseen oo ay dileen oo ay aaseen ayadoo aan qoyskeeda aan ogeyn waxay isla hayeen lama ogaan kara arintan laakiin ciidamada amniga puntland oo si weyn u tababaran ayaa soo qabtay saddexda eedeysano iyo weliba dad kale oo aad u tiro badan waxaana dabadeed lagu kala ogaaday DNA la qaaday oo ku aadanaa cidda gabadha kufsatay taasoo lagu xaqiijiyay in saddexdan shakhsi ay ahaayeen kuwii kufsaday Caashe Ilyas dabadeedna dilay haddana isku dayay inay aasaano god u soo qoday waxaase saakay aykiina godka ee la galeen Caashe Ilyas oo muddo hadda aasan dad badan ayaa muujinayay shakiga ku aadan in raggan la sii daayo isla markaana laga tarxiilo puntland oo laga qariyo dadka Soomaaliyeed laakiin saakay madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Danni iyo garsoorka puntland waxay ku guuleysteen in laba kamid ah raggii kufsaday Caashe Ilyas dabadeedna dilay oo isku dayay inay aasaan in saakay maxkamadda puntland ay ku fuliso xukun dil ah muuqaalka xukunka dilka ayaan la ogolaan in lagu faafiyo barta YouTube-ka taas aawadeed waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta hoose ee commentiga ama waxaan idinku soo diri doonaa messenger-ka Facebook ayadoona Facebook aan soo gelin doono laakiin YouTube-ka waxa mamnuuc ka ah in la soo geliyo dhiig ama qof la dilay ama qof markaas dhibaato loo geysanayo taas aawadeedna waxaan door bidnay in aan soo gelino barta Facebook muuqaalka lagu tooganayo laba kamid ah eedeysanayaashii isku dayay inay kufsadaan Caashe waa raggii eedeysanayaasha ah ee kufsaday Caashe Ilyas dabadeedna dilay iskuna dayay in la aaso qaabka loo dooganayo waxaad ka daawan kartaan barta Facebook aan ku leeyahay duu Allah awood leh u saamaxo laakiin waxaan dhamaantiin aan wada leenahay cadaaladda ha waarto qof walba dhibaateeya haweeney Soomaaliyeedna waa in qaabka puntland ee marsiisa la marsiiyo maamul walba Soomaaliyeed waxa waajib ka saaran in la ixtiraamo haweenka Soomaaliyeed hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka Amnesty International Human Rights Watch iyo weliba hay'adaha kale u dooda xuquuqul insaanka ayaa dalbanayay in Caashe Ilyas inay hesho cadaalad waxaase arintan hormuud ka ah hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee puntland ka dhisan oo muddo daba joogtay kiiska Caashe Ilyas sida u heli lahayd cadaalad waxaase sidoo kale arintan aad barashar u saarayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo si weyn u taageerayay qoyska Caashe Ilyas sida